soo dhawaada saaxiibada qiimo badanow. Casharka maanta waxaan ku eegi doonaa haddii ay badan raalli ka noqdo sida kombiyuutarkaaga xog loogu shubo ama looga shubo. Mararka qaar waxaad u baahan doontaa inaad kombiyuutarkaaga ku shubato xog ama aad ugu shubto saaxiibkaa. Sidoo kale waxaad dhici kartaa mararka qaar inaad ku aragto kombiyuutarka saaxiibkaa xog aad u muhiim ah adigoo wata flash ama flash aad ku aragto xog muhiim ah isla markaasna aad doonayso flashta xogta ku jirta inaad ku shubato kombiyuutarkaaga. Haddaba haddii aadan aqoonin qaabka xogta looga shubto flashta iyo waxyaabaha la midka ah kombiyuutar lagu xiriiriyo, waxaad dhumin doontaa chance badan oo saaxiibka wax uga faa'iideysan lahayd ama asaga uga faa'iideyn lahaydba. Haddaba maanta waxaan isla eegi doonaa qaabka qalabka lagu xiro kombiyuutarka sida flashta, memory cardka, cajalada iyo mobilka xog kombiyuutarka looga shubo ama loogu shubto. ugu horreyntii waxaan gelaynaa this PC ama my computer hadba ka u taqaanid. Halkan way meesha lagu ogaado kombiyuutarkaaga qalabka lagu xiray wax uu yahay. Hadda kombiyuutarkeena kuma xiriirsana wax flash ah. Hadda waxaan soo gelinayaa flash. ugu horreyntiina waxaan baran doonaa flashta sida magaca looga bedelo ka bacdina loogu shubo waxa aad doontid. Haddaba saa u jeeda halkan waxaa soo galay flash. halkan kombiyuutarka wuxuu naga tusayaa notification wuxuu naga tusayaa kombiyuutarkeena isbedel ku yimaaday. haddaba flashki waa kan. halkan waa cajaladii DVD-ga ahayd oo hadda kombiyuutarkeena kuma jiro wax cajalad ah. labadana waa kombiyuutarka maskaxdiisa. kombiyuutarka maskaxdiisa waa C iyo E. halkaana waa flashka. halkan ayaad ka ogaanaysaa kombiyuutarka maskaxdiisa, flashka iyo cajalada DVD-ga xogtooda dhameystiran. sidoo kale halkan waxaad ka ogaan kartaa kombiyuutarka maskaxdiisa iyo flashtaada inta ka isticmaashay inta ku bannaan. kombiyuutar maskaxdiisa midka aad doonayso inaad ogaato right click dheh. halkan ayaa uu kaga soo baxayaa xogtiisa oo dhameystiran. sidoo kale flashta ku dhufo. hadda flashtan waa ay buuxdaa oo waxba kama marna. sidaa fudud ku ogow kombiyuutarkaaga maskaxdiisa hadba inta ka bannaan iyo inta aad ka isticmaashay. ugu horreyntii intaan u gudagalin casharka sida flashta wax loogu shubo waxaan baranaynaa qaabka flashta iyo kombiyuutarka maskaxdiisa magaca loogu bedelo. haddii aan doonayno inaan magaca ka bedelno flashka ama kombiyuutarka maskaxdiisa, saddex qaab ayaa mari doonaa. qaabka koowaad inaan right click dhahno waxa magaca ka bedelayno. halkan hoose ka xulano rename. right click dheh. halkan ka xulo computer. halkan ka soo xul rename. wadada saddexaad right click dheh. halkan properties ka xulo. haddaba saddexdaas qaab ayaad magac uga bedeli kartaa kombiyuutarkaaga iyo flashtaada. hadda waxaan u bixinaynaa 2020 inter ayaan u saraacinaa. hadda waxaan soo ogaanay qaabka magaca loogu bedelo flashka. haddana waxaan ogaan doonaa xog ku jira kombiyuutarkaaga si aad ugu shubi lahayd flashta. ugu horreyntii waxaad tagaysaa meesha xogta kugu jirto. saddexdan sawir ayaan doonaynaa inaan qaadno kana qaadno kombiyuutarkeena una qaadno flashta. haddaba marka xogta aad qaadayso waxaa la maraa laba wado. wadada koowaad xogta halkan ku jirta gabi ahaantii inaad qaadid oo meesha ka wada ridid una ridid flashtaada, ama inaad halkan ka koobiyeysid oo flashtaada ku koobiyeysid. haddaba marka xogta aan qaadayno oo aan doonayno xogta halkan inaan ka wada rarno gabi ahaanteedaba waxaan maraynaa saddex wado. wadada koowaad inaan dhahno right click. halkaana ka doorano cut. oo haddii cut aan isticmaalno ama remove aan isticmaalno xogta halkan ku jirta dhammaanteed waa ay ka baxaysaa. waxayna aadaysaa meesha aan rabno. hadhow haddii aan galno xogtii meesha noogu jirtay oo hadda meesha aan ku jirnaa hadhow ka heli mayno sababtoo ah cut ama remove baan isticmaalno. wadada labaad inaan tagno home. halkaana ka xulano cut. wadada saddexaad inaan isla qabanno control X. saddex wado haddii aan marto xogta halkan gabi ahaanteed waa ka qaadaysaa. wadada labaad waa copy oo haddii halkan ku koobiyeyso halkan u koobiyeyso xogta labada meelood waa ay kugu jiraysaa. right click dheh ku koobiyeysid halkan ka xulo copy ama home tag halkan ka xulo copy ama isla qabo control C. labada wado ayaa xogta markii aad doonayso inaad qaado loo isticmaalaa. midda koobaad waa remove ama cut ama control X
oo ah inaad xogta meesha ka wada qaado. Midda labaad waa copy ama inaad isticmaasho control C. flashta waxaa loogu shubaa ama waxyaabaha la midka dhowr qaab. qaab koobaad waxaad doonaysaa inaad ku shubto flash right click dheh, ka xulo halkan send to, ka sii xulo flashta aad doonaysaa inaad ku shubto. hadda sawirkan haddii aan ka raadina flashta waanu ka helaynaa. waa kan oo sawirkii halkan ayuu soo galay. wadada labaad right click dheh, halkan ka xulo copy ama cut hadda ka isticmaalayso, toolka meesha ku shubaysid. markii aad dul timaado meesha aad doonayso xogta inaad ku shubto, qaabka markii halkan lagu copyinayo 3 qaab weeye. qaabka koobaad right click dheh, halkan aad ka xulato paste. wadada labaad home tag, halkan ka xulo paste. wadada saddexaad inaad la qabato control V. saddexa qaab waa markii aad doonayso xog aad soo qaadato meel soo qaadatay inaad ku copysto meel kale. saddexa qaab ayaa isticmaalaysaa inaad paste xulatid iyo inaad xulato control V. hadda waxaan xulaynaa halkan ayaan ka xulaynaa paste. sida u jeedidba sawirkii aan soo qaadanay halkan ayuu noo soo galay. wadada saddexaad waxa aad doonayso inaad ku shubto flashtaada, qabo right click dheh, jiid dulgee flashta ama waxa aad doonayso hadba inaad ku shubto ku sii daa. sawirkaada haddii aan raadino flashkeena ayuu ku jiraa oo waa kan. saddexdaas qaab ayaa loogu shubaa flashta waxa aad doonaysid. haddii aan kuu soo koobo, inaad right click tiraahdo, halkan ka xulato send to, kabacdina aad ka soo xulato flashtaada. wadada labaad right click dheh, move ama cut ama copy xulo, dulta meesha doonayso xogtan aad ku shubto, ka xulo paste ama control V. hadda waxaanu soo baranay qaabka flashta loogu shubo xog. waxaad kala ogaataa wax walba kombiyuutarka lagu xiro xogta shubitaanka xaggeeda waa isku mid oo qaabkaas ayaa loogu shubayaa. labada wado hadda ka jeceshahay aad maraysaa. haddii aad doonayso xogta inaad gidi wada qaado waxaad isticmaalaysaa cut ama remove. haddii aad doonayso sidoo kale inaad xogta copyayso oo aad ka baqayso hadhow inaad ka dhigto waxaad isticmaali kartaa copy. sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego 2 arrin aad u muhiim ah. arrinta koowaad, wax kastoo kombiyuutarka laga dhilgareeyo waxa ay gelayaan qashin qaadka kombiyuutarka ama meesha loo yaqaan recycle bin haddii aad u taqaano. balse waxyaabaha laga dhilgareeyo qalabka lagu xiro kombiyuutarka sida flashta, memory cardka, cajalada iyo waxyaabaha la halmaala, waxyaabahaas toos ay kombiyuutarka uga baxayaan oo dib dambe loo heli maayo ama waxa adkaan doonta ee bidinkiis in dib loo helo. mar walba kombiyuutarka wax ka dhilgareynayso waxaas waxay geli doonaan recycle bin. balse aad iskaga ilaali markii aad xog ka dhilgareynayso qalabka lagu xiro kombiyuutarka. xogtaas haddii aad dhilgareysid ha moodan inay geli doonto qashin qaadka kombiyuutarka, balse si toos ah ayay uga bixi doontaa kombiyuutarkaaga. waxaan rabaa sidoo kale inaan kuu sheego, marka flashtaada aad ka dhamaysato xogtaada daqiiqadiiba ha ka siibin. haddii aad daqiiqada ka siibto adigoo wax ejectiga marsiinin, flashtaada way ka halaabaysaa. marka flashta xogta laga dhameeyo waxa la marsiyo waxa loo yaqaan ejecti oo ah inaad ogeysiisid inaad ka saarayso kombiyuutarkaaga flashta. haddaba 3 qaab ayaa loo marsiyaa ejecti. hadba midda kuu fududaata ayaad mari doontaa ee bidinkiis. wadada koobaad inaad right click tiraahdo, halkaana ka xulato ejecti. wadada labaad right click dheh flashta, halkan ka xulo manage, halkan ka sii xulo eject. wadada saddexaad ee sax ugu dooran flashta, halkan hoose task barka ah balaartan kor u jeedo ku dhufo, halkan ka sii xulo eject. flashta si u jeedaba kombiyuutarka waa laga saaraa. haddaba markii aad doonayso flashtada waxa ku jira inaad ka saarto oo ka dhilgareyso waxa la marsiyo waxa la yaqaan format oo hal mar ayaad gidigood waxaad oranaysaa delete. waxaad oranaysaa right click, halkan waxaad ka xulanaysaa format ama halkan ayaad tigaysaa waxaad ka xulanaysaa manage, waxaad ka sii xulanaysaa format. cashirkeenu wuxuu ahaa 2 qaybood. qaybtood waxaan kaga hadlaynay flashta qaabka wax loogu shubo iyo xog la xiriira flashta. hadda sidoo kale waxaan baranaynaa telefoonka qaabka kombiyuutarka loogu xiriiriyo isagana xog loogu shubo ama looga shubo. hadda waxaan soo gelinayaa kombiyuutarka telefoonkayga. flashtan waan ka saarayaa. hadda saarkiisa waxaan ku soo xirnay mobilkii kombiyuutarkii.
waxaanu galaynaa this PC ga saan u ogaano computerkan iyo telefoonkan isku xiran yihiin. hadaba saan hore kugu soo sheegay this PC ga meesha lagu ogaado computerkaaga waxyaabaha lagu xiro. hadda waa kan oo telefoonkiina ayaan ku soo xirnay. markii aad doonayso xog inaad ku shubto computerkaaga ama telefoonkaaga waxay la mid tahay flash to kale, balse hadda waxaan ka soo qaadaynaa telefoonkeena ayaan xog soo qaadaynaa. haddaba telefoonka maskaxiisa waa kan, asaga ayaan ku dhufanaynaa. waxaanu kasii tegaynaa meeshii ay xogta noogu jirtay. haddaba waxaan doonayaa image-dan inaan qaado. sidii kii hore ayaan dooranayaa labada wado hadba midkaa doono. marka waxaa isticmaalayaa cut ama remove. waxaan dul tagayaa meesha aan doonayo inaan copy-yeeyo aniga oo gelin red click baan oranayaa. halkan ayaa ka xolanayaa paste. meesha aad doonayso inaad copy-yeeso haddii aad gasho iyo haddii aad dul tagto labada waa isku mid.